بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeenii tooska ahaa waxaan kaga hadli doonaa jabhadda oromada ee hubaysan ee loo yaqaano ola loo soo gaabiyo magaceeda ama Oromo Liberation Army ayaa iyadu sheegtay inay guulo waaweyn ka gaadhay dagaaladii ay kula jirtay dowladda Ethiopia ee Abiy Ahmed uu hogaamiyo waxay sheegeen inay qabsadeen goobo muhiim u ah dowladda Ethiopia arrintaasi ayaynu eegi doonaa bal goobaha ay jabhaddaasi sheegatay inay qabsatay iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca oromada iyo jabhaddaasi hubaysan ee ola ayaynu diiradda saari doonaa dhowr iyo 10 daqiiqo soo socda waxaa ila jooga daaha gadaashiisa ku jira saaxiibkay jaamac xasan cabdulle ama jaamac galla jaamac soo dhow waa maasantahay saaxiib waa dhowe waayay oromo maxay sheegtay oromo waxay sheegeen waxayse hore u sheegi jirin maxaa ka mid ah waxayna hore u sheegi jirnay sheegeen hadda de waynu ogsoonahay oo dalka Ethiopia hadda waxaa ka daaran maaragtay shumac baa ka shidan ama shumacii colaada ka shidan marka dagaalka dalkaas Ethiopia ka socda marba qola maaragtay saaxada ku soo biirta oromadu waxay ahayd qoomiyadda mar walba loogu yimaado saaxada dagaalka haddana aan wax guula gaarin oo maaragta inta badan iyagu ku guul dareysta saaxada oo iyaga oo duurka ku jiro oo dagaalamaya laga yaabo qolo ka dambaysay inta timaado in iyaga oo wali dagaalamaya dalkiiba la qabsado oo kadibna ay maaragta duurkooda isaga sii jiraan yacni qolo walba oo timaada oromo oo dagaalamaysa u yimaadaan haddana iyadoo dagaalamaysa unbay dowlad ka noqon jireen marka waxaa hadda muuqata isbeddel baa hadda muuqda oo in maaragta qorshihii iyo hadafkii oromada in wax weyn iska bedeleen baa hadda yaa ifafaala aha muuqda oo horumar baaxad leh oo xawli ku socda inay samaynayaan yaa maaragta hadda la dareemaya lamana dareemayo yacni muuqata oo wax la taaban kara ah marka dee saaxadii dagaalka ee awal hore duurka ay ku jireen ee ay dibadjoogga iska ahaayeen waxay hadda soo baxay inay bedeleen oo ay ka muuqdaan fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn ay gelayaan jiidihii dagaalka ay u dhabar adeygayaan wax badan baa yacni waxaad moodaa inay iska bedeleen geedi socodka halgankii hubaysnaa ee oromada waaya meelaha hadda ay kooxdan ola sheegtay inay dagaalada ku qaadeen guulaha ay ka sheegteen xaggee ka mid ah warkay soo saareen horta marka la fiiriyo guud ahaanba deegaanka oromada dhaqdhaqaaqa xoog leh oo ciidan baa ka socda oo jabhaddu ay wado saldhigyo badan oo ciidan bay la wareegeen gobollada guji arsi walaga oo isagu inta badan ba yacni afartiisa aagba marka laga reebo magaalooyinka waaweyn ee farakutiriska ah marka laga reebo isagu gacanta ciidanka OLA ku jira waxa ay kala oo saldhigyo waaweyn ka qabsadeen gobollada guji iyo arsi sidoo kale magaalada nagayla borana waxa ay sheegeen inay maaragta la wareegeen ama ay galeen ciidamada jabhadda warkaasi waa war iyaga uun ku eg oo inta badan shacabku maaragta aanay soo tabinaynin balse waxaa hubaala gobolka la yidhaahdo nagayla borana in maalaha ay ku xoogan yihiin uu ka mid yahay haatanna ay sheegeen in ay la wareegeen magaaladii nagayla borana la yidhaahdo ee gobolka maaragta gobolkan zone guji wax noocaasa in la yidhaahdaan jeclahay ay la wareegeen marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka jabhadda OLF ay wadaan dhaqdhaqaaq xoog leh oo military oo ay deegaamo badan ku qabsanayaan oo meelo badan oo saldhigyo ciidana ay kula wareegeen lama hubo de inay sii joogi doonaan oo ay sida ay maaragta ay hadda u dhaqdhaqaaqayaan ee ay u xoog badan yihiin inay u adkaysan doonaan lagama warqabo ama lama xaqiijin karo balse waxaa hubaala in ay hadda wadaan dhaqdhaqaaq aad u xooggan oo ay military ahaan ay kaga sayid caleeyeen ciidankii militariga dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia
waayahay marka la fiiriyo warka ay sheegeen sidoo kale waxaa ka mid ah in maaragtay ay qabsadeen goobo muhiim ah oo maaragtay markaasi ay warshado ku jiraan maxaa ka yidheen iyada goobahaasi iyo meelaha ay qabsadeen waa run sida ay warar kala duwan sheegayaan ma aha mid iyaga keliya ku kooban warar ila kala duwan kasoo baxayaa jira oo sheegaya in warshadii sonkorta magaalada Finja ee warshada Finja la yiraahdo waxaba in Finja la isku dhahaan u malayn oo maaragtay to ay ku taallay warshad weyn oo sonkoreed oo sida ay sheegayaan boqolkiiba 75 wax ka badan ama boqolkiiba 75 dalka Ethiopia sonkorta ay laga isticmaalo warshadii soo saari jirtay magaalada ay ku taallay iyo warshadiiba waa ku habsanay bay yiraahdeen waxa kale oo xusid mudan magaalada Saluta la yiraahdo oo aan ka fogeyn Addis Ababa oo dhawaan ay booqdeen iyadana waxa ku yaala xarumaha isgaarsiinta ama maaragtay to goobaha laga kontaroolo isgaarsiinta dalka Ethiopia gaar ahaan dhinaca telecommunicationka iyo adeega iyo aaladda internetka la yiraahdo iyo meelaha ay laga kontaroolo saldhiga u aweeyaan oo sidoo kalena magaalada Bishoftu la yiraahdo ayaa iyada naftirkeeda oo kamid ah magaalooyinka waaweyn horeyna aan filayo in Dabrizayt wax noocaas Nazireet la dhihi jiray ayaa kamid ah meelaha ay tageen oo marka qabsasho rasmi ah oo ay meelaha qabsadeen ma jirto tabarteedna waxaad moodaa inay salahayn balse inay tagaan oo istusaan ayaa waxay tahay wax weyn oo horey aan looga baranin oo ciidankii buuraha ku jiray maxaan geedaha saaraa inta soo degeen inay magaalooyinka yimaadaan laamiga highwayga ah yimaadaan dhahan Addis Ababa 30 kilomitir u jirsanay baabuurtii ay kala celinayaan warshadihii Ethiopia iyo goobihii mashaariicda waaweyn ee ku hareereysnaa magaalada Addis Ababa maalinba mid inay booqanayaan oo tagayaan waxa weeyaan wax horey loo arki jiray ma aha waa wax hadda cusub waa wax muujinaya ifafaalaha soo socda iyo halista ku gadaaman maaragta xukunka Addis Ababa ayay muujinaysaa waaye aad baa maasan tahay jaamacow waxaad sheegtay ama aan wada ognahayba kooxdan qowmiyadan oromada jabhad walba oo markaas ka soo dhex baxday iyadoo dagaalamaysa xukunku isbedelaa oo qolo kale oo meesha uga dambeysayba oo halgankeedu ka dambeeyeen baa meesha ku habsata badanaa sida dabeecad ahaan lagu yaqaano marka jabhadan hadda oo ele ninka odayga lagu magacaabo Chalmro uu hogaaminayo maxay kaga duwan tahay jabhadihii reer Oromia la yaqaanay waa run oo marar badan ayaa halgamadii kala duwanaa ee shacabka Oromadu ay guul daraysteen waxa midaas de sabab u ahaa inta badan waxay ahaayeen halgamo shisheeye salka ku haya oo meelo kale ka shidaal qaata ama hogaamintoodu ay ku xidhan tahay tan hadda waxay kaga duwan tahay sida muuqata waa jabhadii ugu horeysay ee Oromo yani OLF way soo halgantay TPLF iyadoo halgamaysay ugu timid OLF saddexdan xaraf rag badan baa soo maaragtay hogaamiyay marka mar Soomaaliya taageeraysay oo dawladda Soomaaliya ayaa dabada ka riixaysay oo taageero iyo dhan walba la garab taagneed hil iyo hooba markii dambe iyaga iyo EPRDF ama TPLF iyo jabhadihii isu yimid midoobay bay ku jireen OLF waa looga baxay inta looga baxay baa iyaga birta laga aslay duurkoodii bay dib ugu noqdeen mar kale ayaa marka saldhigyo dibadda ah iyo Eritrea ay maaragtay to hogaaminteedii ay fadhiisatay tani waxay kaga duwan tahay ma jirto maanta dal ka baxsan Ethiopia oo inta aan ognahay ay saldhig ama taageero ku leedahay waxa taageero u ah waa shacabka Oromada waxa ay ka dhex dagaalamayso waa shacabka Oromada ciidankan dagaalamaya ee OLF ma aha ciidankii hore ee jabhadda OLF yani marka la fiiriyo boqolkiiba 5 kama dhanna boqolkiiba 5 kama dhanna
ciidankii jabhadda OLF iyaga oo dagaalamaya isbeddelku uu ku dhacay ama iyaga oo dagaalamaya ama iyaga oo Eritrea jooga isbeddelku inta ku yimid markii dambe soo xarooday sida OLF-ta yacni boqolkiiba 5 ciidamadaasi kama dhanna ciidanka dagaalamaya waa dhalinyaro intooda badan dalka sii joogay waaqica iyo xaaladda Ethiopia la socda waa dhalinyaro ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo ciidanka deegaanka Oromada kamid ahaa halka lagu tababaray halka tababar ku qaatay halka maxaan ku dhahayeeto ka ahaa kuwo ka halgama oo iyaga oo ciidanka dawladda Ethiopia qayb ka ah u goostay xagga waxa kale oo kaalinta ugu weyn ka qaatay ama kaalinta ugu weyn ka leh waa ciidanka dhalinyarada qiiro lagu magacaabo jabhadda ama shacabka Oromada marka muhiimaddu say dooni ba ha noqoto waxa xaqiiq ah in hoggaanka maanta oo ah aqoonyahan Jalmaro waa arday kamida ardaygii jaamacadda Addis Ababa ayuu ahaa isaga oo arday ah oo wax ka dhigta jaamacadda Addis Ababa ayaa waxa uu ka doorbiday in uu dadkiisa iyo dalkiisa ka qaado cadaadiska iyo cadaawadii iyo gumaysigii maamulkii EPRDF TPLF ay garwadeenka u ahay okay xilligaas uu dagaal bilaabay markii dambena Eritrea ayuu tababar u tagay gudaha yuu ku soo noqday markii gudaha la yimid waxa uu cuntami waayay heshiiskii dawladda Ethiopia ay ku baaqday oo iyada oo dhalinyaradii Oromo Cairo ay afgambiyeen oo xididada u siibeen TPLF iyo wixii la shaqeynayay in la majara habaabiyo guushii iyo halgankii shacabka Oromada ayaa uu cuntami weyday waxa uu soo baxday inaanay maaragtay kooxda markaasi hogaaminaysay Oromada oo ay kow ka ahaayeen ninka lagu magacaabo Abadullah Gamada gudoomiyihii hore baarlamaanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo xubno kale oo badan in maaragtay ay ka been sheegayaan rabitaanka shacabka Oromada taasa marka waxay ku kaliftay isaga iyo wixii raacay in ay maaragta mar kale ay dib qoriga u qaadaan oo diidaan inay hubka dhigaan oo ay duurka galaan oo dagaalamaan waxa loo adeegsaday awoodii ugu sareysay ee dawladda Ethiopia waxa lagu garaacay diyaaradaha dagaalka waliba casriga ah waxa loo adeegsaday nooc kaste oo awood ah oo Ethiopia ay heli kartay marka muhiimadda waxay tahay in markii dambe cadaadiskii iyo cadaawadii ay sii korodhay shacabkii Oromada lagu qaaday duulaan cad oo saraakiishii howlgalka sameeynayay ay si axmaqnimo ah oo aan taariikhda shacabka Oromada soo marin in loola dhaqmo muddadii Abiy Ahmed Ali uu joogay taasa marka waxay horseeday in kumanaan kun oo ciidamadii deegaanka Oromada kumanaan maleeshiyada kumanaan dhalinyaradii qiiro ah in ay ku hirtaan jabhaddan oo markaa fara ku tiris ahayd halkaas waxa ka soo baxay cudud xoogan aqoonyahan leh ciidan istiraatiijiyadii militariga iyo hawlgalladii dagaalka garanaya sidoo kale deegaankoodii jooga bulshadoodii ka dhex halgamaya cududda jabhadda OLF durba istartay sidaas ay ku timid waxa kale oo runtii xusid mudan in hogaamiyahooda Jalmaro lagu magacaabo inuu yahay shakhsi mayal adag oo calool adag oo ka maaragtay Said Caleeyay dhammaanba dadaaladii kala duwanaa ee ama nacfi lahaa ama maal lahaa ama weerar iyo dagaal lahaa nooc kasta lahaa ee la isku dayay in lagu maaragtay soo jiito ama lagu qabjabiyo marka hoggaan adag oo calool adag oo aqoonyahana oo karti leh oo fahmaya dadka Oromada waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan ayaa maanta garwadeen u ah jabhadda hoggaankaasi waxa uu suuro geliyay inuu isku xidho shacabkii Oromada iyo halgankii Oromada waxa uu suuro geliyay inuu ka faa'iideysto oo uu ka maaragtay dhex kaluumaysto cadadii shacabka Oromada oo maamulkii ay maaragtay dhibsadeen uu oga roonaado oo dhammaan kuwii cadhooday kuwii duday kuwii dadkooda la dilay kuwii la dulmiyay kuwii la xidhay
inuu u wada gacan haatiyo oo ay noqdaan meel ay ku soo hirtaan marka waxaa la dhihi karaa waa hoggaan faahim ah aragti leh hufan fahmaya waxa ka maqan ee uu doonayo waxa dadkiisu ay doonayaan hoggaan fahmaya weeyaan awal horena oromadu ma haysanin hoggaan noocaasa oromada laba hoggaan baa isu soo daba maray waa Jawaar Maxamed oo ahaa ninkii xididada u siibay dawladdii Ethiopia ee dhammayd isagoo adeegsanaya afkiisa adeegsanaya oo Facebook fadhiya ninkii xididada u siibay xukuumaddii adkayd ee TPLF ayuu maaragtayto ahaa kanina waxaa muuqata inuu xididada ugu siibi doono cudud military oo ah codka kaliya Ethiopia laga isticmaalaba okay waaye aad baad u mahadsan tahay marka hadda la kusoo duubo su'aasha ugu dambaysa ninkani waxa uu ka faa'iideystay xoogii qeyro maaragtay cadaadiska uu saaray Abiy Ahmed kadib markii Jawaar la xiray iyo xoogii ciidanka deegaanka oromada qaybihiisa kala duwan hadday maleeshiyaad ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd saraakiil military iyo waxay dooniba ha noqdeen cududii qoomiyadda oromada ayuu ka faa'iideystay ma aha يعني كوح جارة أما هورين جارة ما أها عدود أرمض ويهل قلتي أسكري كذا معمول كذا برلمان كذا وذات كذا باستر كذا واحد نوي وذا هالجمين هالجن كيو يكون في جامعة نبكوا هذي سدا يوقف إليستين حق أرمض عيدا لها يرى لها هاي سدا تي بيلفتن أي مروى وين قبصدين لا تلاقيها أنتي معرفة والله ما إليهين الماركة نجيل بوران عم كدوان ولا كلكني أدقي هاي هاوي مركا حقيقة لقاها هالضيو ولا كلكني أدقي هاي أو نمان كان ده تكريج ونمان مارك تايتو ونمان كم عضو وريوي ومد وحاسية ضبا إن دجالك إيو بلايدا يقول لا نشا كنا إنتا ورمضنا وضد كبير ليا وضد معنا سن وضد مارك تايتو إن أنت بدن أن شعلين نبكى يشدده ورمو هذا يصير تكريج هاللايد geeska Afrika iyada ka talin lahayd marka xaqiiqda laga hadlayo marka sida tigreegu uu tayada u leeyahay oromadu tayo uma laha marka xaqiiqda laga hadlayo ma aha inaan ihaanaynayo ama aan xaqirayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay tayada marka la yiraahdo oromadu iyada luqunta iyo lugaha isku dhegan waa Soomaaliya isku dhegan tahay oromaduna qaab kale oo iyagu ay yaqaanaan bay lugaha isugu dhegan yihiin kii oroma ah ee wax loo dhiibo eeg Abiy Ahmed yaa yaqaanay Abiy Ahmed lama aqoonin wuxuu yahay cid taqaanay meena jirin wuxuu ahaa arday TPLF ay korsatay ay kolba ay u isticmaalaan bulshada maalinkii oroma halgantay ee ay ka dhiiday dhibaatada 3 sano iyo siyaado markay soo halgamayeen ee guushi ay heleen aakhirkii maamulkii oromada ee uu xubinka ka ahaa Abiy Ahmed aan filayana inuu madaxweyne ku xigeen ka ahaa yaani ayaa la saftay markii dambe dadkii markay xaqiiqda arkeen mana ahayn wadaniyad iyo jacayl ay oromo jecel yihiin ee waxay la jaan qaadeen waqtiga iyo xaaladda iyo inaanay sii jiri karin nidaamkii TPLF ayaa u muuqatay taasa marka waxay kaliftay inay xagga u leexdaan kuwii marka shacabkoodii markay daba istaageen waxaa dhacday shacabkii inuu aaminay oo la aaminay markii la aaminay Abiy Ahmed markuu ku fadhiistay meesha iyagii buu ka bilaabay oo baangada birta uu ka aslo baangadaha u qaatay marka muhiimadda waxay tahay yaani qofkan markuu xukunka qabto qaabkii uu ku yimid inuu ka fikray ahaan lahayd marka oromo waa population tira badan umada badan baa ku dhex jira wax badan baa ku dhex jira say marka u badan tahay uma taya badna oromo oo say u tira badan tahay u taya badnaan lahayd geeska Afrika cid kale kama hadasheen taasina waxa weeyaan waxaad moodaa hadda dhinaca hogaaminta haday ka liiteen maanta intooda tayada leh yaa cid walba ku filan marka xaqiiqda laga hadlayo intooda ha cooga aan iska fadhiyaan inta yar ee tayada leh ummadii wax ma wada bedesho Soomaali oo dhan wax ma bedeli karto Tigray oo dhan wax ma bedeli karo Axmaar oo dhan wax ma bedeli karto qayb ummadda kamida qof ka soo baxay ayaa garwadeen noqda garwadeenkaasi ayaa bulshada in kamida hogaamiya halkaas guusha lagu hiigsadaa marka waxaad moodaa hadday shalay ku fashilmeen dariiqii maaragta ku dhisnaa cududda shacabka
غيره أي هجامين مظاهراتك iyo banaanbaxa iyo cabasho muujinta noocay ku dhisnaa hadday ku guul daraysteen maanta waxaa muuqata inay ku guul daraysanaynin qoriga caaradiisa sababtoo ah waa luqadda kaliya ee Ethiopia lagu wada hadlo weey luqadda kaliya ee Ethiopia isku fahanto waa qoriga caaradiisa weeyaan Ethiopia aqli ma kala wado cilmina ma kala wado caloolina ma kala wado Ethiopia qoriga caaradiisa ayaa kala wada marka kii oo maanta fahmo wata aragti hogaamineed maaragtay ay ka muuqato hogaanka ururkooda yaa socda marka waxa ay muuqataa runtii isbedelka hadda oromo laga filayo yani Tigray markii la yiraahdo iyaga uga aanaysan maanta inay wax bedelaan haddii shacabkoodu marka uu huro nafta oo sidii ay awal horeba nafta u hureen ay nafta u huraan oo ay dhaqaalaha ku garab istaagaan oo ay shacabka u maarata u tumaan oo kuwa kale ay wajiga u xumeeyaan oo iyagoon wax kaleba yeelin markay arkaan ay cara maartay isgeliyaan way guuleysanayaan xaqiiqdu waxa weeye shacabka ayaa awoodda rasmiga ay tahay marka rabitaankii shacabka oo qoriga caaradiisa lagu qabay maanta cid maaragta hor istaagi karta anigu ma aaminsan inay jirto waa mahadsantahay jaamac waaye aad baa u mahadsantahay saaxiib waaye daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabinayaa qodobkan kooban ee aan kaga warramaynay sheegashadaasi jabhadda oromadu ay sheegatay inay qabsatay goobo muhiim ah oo ay warshadii sonkorta ee Ethiopia ay ka mid tahay ay qabsadeen intaan war kale oo kan la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo fi amaanillah jaamac mahadsanid walaal adaa mudan walaal